شموخ نوليه من شرمخ نوليه من شرمخ نوليه وليمطر سبيلا shirka ay qaban qaabsatay guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo halkan maanta booqasho ay ugu yimaadeen guddigii heer qaran oo ay socdaan gudoomiye Muuse iyo gudoomiye ku-xigeenkii Mr. Salwan iyo xogayihii guud Muxidiin ay socdaan iyo guddigii heer gobol iyo heer degmo iyo wajaale runtii mas'uuliyadina wada saarnay dhamaanteen ayaa runtii gaar idinkeeda ku noqotay intaanu duruufo leenahay idinkoo leh oo masaariiftiinii wada shaqooyinkiinii wada qoysaskiinii wada ayaa haddana waxaad isa saarteen mas'uuliyad kaloo siyaado ah oo dadkiinii inaad wacyi gelisaan oo diintooda iyo dhaqankooda toosisaan ayaad soo banbaxdeen ilaahay khayr ha idin siiyo Gebile runtii waa deegaan ka culays badan deegaanada kale wuxuu xuduud la leeyahay waddanka Itoobiya inta leeg ee boqolaalka milyan ah duruufaani deegaanada kale lahayn baanu leenahay waxa ku yaala customkii ugu weynaa ee jaadka soo marayay wajaalada xaaladeeda idin kama warramayo waa meel isdhexgal bulsho oo ummad kala duwan ay iska soo gaadhaan ganacsi ka socdo runtii dabcan saameyn ku yeelanaya dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo wax walba iyo bulshadaba duruufaha horta gaarkaanu leenahay inaha marka laga tago guddiba halkan ka dhisan Gebile oo runtii guddigii acyaantii bulshada guddigii aanan oran dadkii ugu mudnaaba la soo xulay Gebile shirar baanu yeelanay aniga barsaabku week hor runtii lagu dardar gelinaya arintii sidii hore loogu sii qaadi lahaa khayr Allah siiyo maayarkii hore aad iyo aad buu uga shaqeeyay arintan way idinka ku amaanaya inuu dhulna bixiyay culimaduna waxay ka marakaceen gacan weyn inuu ku lahaa sidii u gudan lahayn waajibkooda annaguna ilaahay hortiis waxaan diyaar u nahay inaan halkii ay dhigaan ka sii qaadno oo ilaahay fadligiisa aanu hawshii halkii iyo meel ka sarreysaba sii gaarsiino taana ballantaan oo la galay guddiga iyo culimadii reer Gebileba idinka hortiina taas waan ka qiranaa waxaan runtii amaanaya runtii ilaahay khayr siiye isuduwaha saaxiibkay Mustafa waa nin qiimo badan wacyi gelintan oo kaliya kuma filaanaysa haddaan madaariska iyo aqoonta diinta kor loo qaadin oo aan la gaarsiin ilaa iyo heer tuulo heer gobol heer degmo aan saa loo soo dhisin waxaynu dadka u sheegnaa raad badan kuma yeelanayo runtii isagana waxaan ku amaanayaa inuu goob kasto khayr lagaga hadlayo isagu taagan yahay waxaan ku soo ururinayaa dalabka ka yimid culimada horta waxaan eegi doonaa dhulku bal inuu magaalada ku dhow yahay oo meel de adeegii aad waajibkiinii ka gudan kartaan haday tahay ayaynu eegi doonaa arrintaasaan soo qorshahan waxaan u keeni doonaa insha Allah taala culimada ayaan u leeyahay doonaa hadii aan leeyahay laakiin soo jeedintiina waanu qaadanay intaasaan ka oran doonaa wixii kale taageero looga baahdo ama ha noqdo in wixii ciidana ama ha noqoto wixii dhaqaale kala hawlo lagu socodsiinayna iyadana diyaar ma sha Allah nahay ilaahay wuxuu yiri kuntu ummatan ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar shaqo la qabto shaqadii ugu wanaagsanaa ay runtii haysaan dadka inaad xumaantana ka reebtaan wanaagana fartaan taraasamaalka ee qofkii ilaahay ku guuleeyo uu guul sheegan karaa waata qofka ilaahay taa waafajiyana runtii liibaanay sheekha wuxuu ka dhawaajiyay
laba qodob oo aad looga ducaysan jiray inaynu gunta maanta u fadhino qodob waa abaaraha qodobna waa colaadda deynta abaaraha ku horeyno inta badan haddaynu aragno amba qolo inta cilmi adduunye sheegato hay'ad iyo aqoonyahan cimilada faalaynaysa ilaahay meel ka duwan buu inoo dhigo inoo sheegay laba aayadood waxaa jira isku jiha qaadaya mid ilaahay wuxuuna leeyahay loo istaqaamu calaa ariiqati la asqaynaa maan qadaqan oo dadku hadday toosnaan lahaayeen oo dariiqii jidkaan u jeexay mari lahaayeen ya aayad kalena waxaa istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursilu samaa calaykum midraara labada aayadood waxay isugu marag furay midna ilaahay wuxuuna leeyahay hadday toosnaan lahaayeen midna ilaahay wuxuuna leeyahay ilaahay u soo noqda ilaahay waa dembi dhaafe markuu ilaahay dembigeena dhaafo intuu dembigeena dhaafo inaga masaxay nama fasaxayo wuxuu inoogu biirinayaa roob dhibca waaweyn inuu inoogu daro marka dunuubteenna wixii ka yimiday ayuunbay ka dhasheen colaadaha iyo abaaruhu labaduba weliba intuu ilaahay hadduu isku miisaami lahaa ciqaabteenna iyo dembigeenna halkaa ma weynaan joognayna waynu baabi'i lahay labadaa hadduu ilaahay isu miisaami lahaa jidka quree labadaa baan kaga baxaynaana waa towbadda iyo inaynu ilaahay u noqono nabiga calay sala slam maxaa fadakir ina dikra tanfacu lmu'miniin sooma shaqadiina kama tago in qofka la waaniyo laga quusan oo lagu celceliyo waayo qofka inuu qalbigiisa iimaan ku jiro marka dambe qalbigiisa waa aqbalaya shaqo la qabto mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad tiina ayaa runtii ugu wanaagsan farxad bay tahay kulan khayrkan lagaga sheekaynayo amba intanoo qof oo ilaahay u adeegaya yimaadiin inaan soo dhex istaago on kelmadeeda ka yidhahda horta aad baan ugu faraxsanahay ka maamul gobol ahaan diyaar baanu u nahay guddi uma shaqaynana ilaahay baynu u shaqaynaynaa marka aynu kulankan oo kale iskugu nimaadno shaqo ay mas-uuliyaddeeduna saarnayd baad idinku isku sii xilqaanteen cidda aynu wax kaga rabnaana waa ilaahay run baan ku darayaa guddigan wanaag fariistu waa shaqaale ilaahay nin ilaahay shaqaalaystay wax ka wanaagsan oo ka fiican aanu garanba maayo shaqada waxa weeye ama guddiga wanaag fariista meel fog baa laga keenay oo 20kii sano ugu dambeeyayba wadanka way ka shaqeynaysay waana hay'ad qaran oo hay'adaha qaranka ay ku jirtaay ka mid tahay sidii gudoomiyuhu sheegay halka markay taagan tahay meel fogna laga keenay oo rag maanta dhintay oo waxa weyn ilaahay ha u naxariistay aad ugu soo kifaaxay ay jiraan ragga maanta joogaana ama gobolada ha noqoto ama caasimadaba ha noqotee waa rag iska xil saaray oo shaqada aad u wada xaqiiqatan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa inuu idinku mahadnaqaynaa waana idinku faraxsanahay inaad maanta noo timaadaan waayo waxa weeye biyaha socda biyaha fadhiya inta badan iyaga kiciya oo markay waxa weeye qofkii ku yimaado ee culimadii ay waxa weeye culimada iyo roobka meelaha socodkay ku fiican yihiin roobku hadduu meel uu istaago oo dhulkii kale waxa weeyaan uu gaari waayo de inta yar uu ku daay baa lagu soo ururaa culimaduna de diin ilaahay bay sidaan oo inay faafiyaan oo ay socdaan oo waxa weeye waxyaabii da'yarteenu ay ka xishoon jireen oo ay la soo dhex galeen ay tahay wax la yiraahdo soo galeyti oo wadankii farabaas ku hayo oo qaatay oo dabada u soo baxay oo hawla yaroo yaacaya inama yaroo yaacaya qaar waxa weeyaan kooranay wax baanu iibinaynaa oo xanjo yar la cararaya qaar sharamaad la cararaya qaar masaajidka ka dawirsanaya qaar gidaarada seexanaya qaar ayaan dhawid barasaak wuxuu sheegay oo runtii aad uga warbixinay dhibaatooyinkooda ku nooc weey waxyaabaha wax loo baahan yahay dacwad ahaan iyo diin ahaan de waxaanu ka qaban kareyno ama qaranka isku garab taagin inaynu ka shaqeyno wixii diinteena lid ku ah inaynu iyadana de waxa weeyaan aynu waqti siino ka shaqeyno
waxyaabahaasoo dhan waxay nooga baahan yihiin dadaal waxay nooga baahan yihiin inaynu waqti siino waxay nooga baahan yihiin maanta meesha la isla maraya meelihii dacwadda laga bilaabay odayaashu berigi hore ka soo bilaabay way ka dhaqaaqday social media iyo hawada iyo waxa weeyaan santalaydka la is eryanaya marka bahar santalaydka gashay oo dhacantay oo sida wax looga qaban karaa iska adag tahay oo qofku hal kursiga oo fadhiya abuu xumaana kaga dhiri kara wanaagna kaga dhiri kara